dahab marka laga hadlo waxaa laga yaabaa inaan xasuusano keliya kan dumarku dhagaha iyo qoorta sudhaan quruxdana loogu talagalay, laakiin dahabku waa mid ka mid a kaydadka dhaqaalaha ee safka hore kaga jira waxyaabaha aadamuhu isku raacsan yahay inuu leeyahay qiime aan isbedelin. Lacagta caadiga ah waxaa dhacda in marar badan dahabka loogu kalsooni badan yahay, gaar ahaan xilliyada sicir bararka iyo dagaaladu dhacaan. Haddaba muuqaalkan waxaan ku eegaynaa yaa haysta kaydadka dahabka ugu badan ee adduunka, ama halkee ayuu yaallaa dahabka ugu badani. Sida aan iska fahmi karno, halka uu dahabkaas yaalla waxay noqonaysaa xarunta dhaqaalaha ugu badan ee uu yaallo. Dalka Maraykanka ayaa ah ama leh labada kayd ee ugu waaweyn dunida ee dahabka noocaasi yaallo. Haddaba yaa leh dahabkaasi ama qaab noocaase ayuu ku soo galay dalka Maraykanka? Marka laga hadlayo dahab waslad ah oo aan ahayn mid sharaxaad iyo qurux loo isticmaalo, waa dahab miisaankiisu badan yahay oo markaasi isku xidhan. Dahabka noocaasa kiisa ugu badan ama dahabka noocaasa meesha ugu badan ee uu ku jiraa waa dhulka hoose ee wadooyinka Manhattan oo ah degmo ka mid ah New York ee dalka Maraykanka. Waxaa godkaasi uu hoos u qodan yahay oo uu dhulka ka hooseeyaa 25 mitir. Waa dhererka 8 dabaq oo isdul saaran. Halkaasi waxaa ku yaalla bangiga kaydka federaalka ee New York. Godkaasi dhulka hoostiisa ah waxaa ku yaalla kayd dahab oo gaaraya 5,000 oo metric tons. Marka waslad loo eego waa 400 oo kun ilaa 500 oo kun oo wasladood oo dahab ah. Halkii waslad waa 12 kiilo iyo badh dahab saafi ah. Haddii kilogram loo bedelana, guud ahaan dahabka godkaasi hoostiisa ku kaydsan waa 5 milyan oo kilogram oo dahab ah. Haddii qiimaha dahabka maanta uu joogo loo bedelo 5 milyan ee kilogram ee dahabka ahi, waxay u dhigantaa lacag ahaan 650 bilyan oo dollarka Maraykanka ah. Waa boqolkiiba 65 dahabka guud ee dalkan Maraykanka dhex yaalla. Kala badh in ka badan dahabka guud ee dalkaasi Maraykanka dhex yaalla ayay noqonaysaa marka intaasi 5 milyan ee kilogram ee dahabka ahi. Haddaba dahabkani yaa iska leh? In yar oo ka mida mooye dahabkan dhammaantiis waxaa iska leh wadamo shisheeye iyo bangiyo caalami ah. 36 wadan iyo bangiyo caalami ah iyo ururo dhaqaale oo international ah ayaa kaydkaasi dahabka iska leh. Marka laga yimaado kaydkaasi godka hoostiisa ah oo ah kan ugu weyn ee dahab ku jira dunida, kan labaad oo ah mid ay hal dowlad iska leedahay waa kaydka Fort Knox oo ku yaalla Kentucky oo isla Maraykanka gudihiisa ah. Halkan waxaa yaalla 4,582 metric tons. Kilogram haddii loo bedelana waa 4,582 kun oo kilogram oo dahab ah. Qiimo ahaanna sicirka maanta dahabku maraya marka loo bedelo waa 596 bilyan oo dollarka Maraykanka ah. 596 bilyan oo dollarka Maraykanka. Dahabkan ama kaydkan waxaa iska leh dowladda Maraykanka iyo shacabka Maraykanka oo kaliya. Labadaasi kayd oo ah kuwa ugu ballaaran ee dahab ku jiro, labadaba waxaa waardiyeeya oo ilaaliya dowladda Maraykanka iyo ciidamo si gooni ah u tababaran inay sugaan amniga dahabkaasi. Marka laga yimaado labadaasi kayd ee ku yaalla gudaha Maraykanka, haddii la eego wadamada ugu badan ee haysta kayd dahab, waxaa booska koowaad ku jira Maraykanka, booska labaad waddanka Jarmalka, kaalinta saddexaad waxaa ku jira Talyaaniga, Faransiiska ayaa kaalinta afraad fadhiya, kaalinta shanaadna waxaa ku jira dalka Russia. fadlan muuqaalka like ka ilaawin sidoo kale channelkeena soo raaci si aad u shaqeybaha dambe ee muuqaaladeena. Nabadgelyo.